sir fakatay war sir fakatay nidaamkan hadda jiro Soomaaliya xafiiska madaxweynaha xafiiska wasaaraha xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka nidaamka hadda jiro gabigiisaba in laga taqluuso aan lagu shiray cidda shirtay waa idin wada waa afar koox waay sida ku qoran maqaalkan hadda i hor yaala ee akhrinayo waxaa rabaa waxaa laga yaabaa fiiri waxaa laga yaabaa waxaaba hubaaba dowladda wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha laga yaabaa inuusan ogeyn waxaan hadda idin sheegayo sir fakatay waay waxaa idinka rabaa inaa akhrisaan dadka wax akhris yaqaano maqaalkan ay soo qoreen qoladan loo yaqaano International Policy Digest ciwaankiisu uu yahay sida how to rebuild Somalia sida Somalia dib u dhis loogu sameyn lahaa a nation perpetually adrift waa Somalia hadda waa ummad gebigeedaba qadka ka baxday qadkaaba ka baxnaba marka maqaalka anoo iska akhrinayo saaka hal mar sir meesha ku dhex jirta isoo booti waxaa shiray oo la xaqiijiyay UN-ka iyo Mareykanka iyo midowga Yurub iyo midowga Afrika maqaalka horta waa xasaasi hadda af Ingiriiska ku hadashid maqaalka waxyaaba wuxuu soo jeedinayaa maqaalka taladaana wuxuu u muuqataa in sidoo kale ay qaateen afartan koox ee hadda shirta hadda idin sheegay maqaalka wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso gole loo yaqaano Somali Technocratic Council waa gole technocratic Somali xirfadley waa gole oo madaxweyne aan lahayn Somali xirfadley aan lahayn dalka in madaxweyne aan lahayn Soomaaliya in gacanta loo geliyo dalka Soomaaliya in gacanta loo geliyo muddo 3 sano ah si ku meel gaar Soomaaliyeed dad aanan dalka faraha loo gelinin waxa loo yaqaan dhaqameed iyo dadkan cilmiga aan lahayn dal si loo maamulo iyo dadkan NGO-yada kaliya yaqaano si loo maamulo inaan dalka gebigiisaba laga qaado waxyaabaha wallahi aad iyo aad please akhriya dadka gaar ahaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee daawado maqaalkan akhriya ummadana u sharxa dadka base-ka maxaa followers-ka badan leh maqaalka waxyaabaha uu leeyahay uu soo cogsanaya waxa kamid ah oo sababta Soomaaliya qadka uga baxday horta maqaalku wuxuu ku bilaabayaa qaybta koowaad kaba soo qaadu leeyahay hadii lacala Mareykanka tusaale soo qaadana maqaalka ka waran hadii dalal shisheeye xeebaha Mareykanka imaan lahaayeen kalluunka iskala baxaan wasaqda ku shubaan shidaalka Mareykankana iskala baxaan yani wuxuu durayaa maqaalka Turkiga u durayaa wuxuu u muuqataa UN-ka Mareykanka midowga Afrika iyo midowga Yurub in Turkiga ay ka shireen sheekadan iska socod hadda Azerbaijan ugu dambeysay maanta heshiiska difaaca Soomaaliya ee la gashay ayagana way ansixiyeen maxay waxay arkeen Turkiga iska dhuuqay baashtu basurti Azerbaijan soo labays marka maqaalku wuxuu leeyahay ka waran dal dhan oo kheyraad fara badan leh Soomaaliya badeena oo ummad kale iska imaanayso waxay rabta ka samaysanayso qashin ku shubay shidaal kala baxayso waxay rabta iska samaysanayso waxay noqon lahayd Mareykanka gibigooda inay dagaal galaan ayay noqon lahayd waa lama taabtaan kheyraadka iyo qadiyada dhulka waxyaabaha kale ee maqaalka uu xusay waxa kamid ah Soomaaliya nidaamkan hadda jiro madaxweynahan hadda noo fadhiyo wasaarahan hadda noo fadhiyo gudoomiyaha baarlamaanka golaha wasiirada hadda fadhiyo maqaalka dhahaya waxaa soo sameeyay dalal Soomaaliya cadow ku ah Ethiopia kamid ah Kenya kamid ah dalal Soomaaliya cadow soo jireen la ah oo weligood aan rabin Soomaaliya inay toosto ee siriq ka damacsan macnaha hadii hadalka si kale loo dhigo dawladdan hadda jirtaba gibigeedaba waxaaba soo dhisayba dalal rabo in Soomaaliya ay kala burburto gibigeedaba ay burburto wuxuuna maqaalka leeyahay wadadii burburka Soomaaliya waa kortay maamul goboleedyada hoosa laga fangareeyaa laga la siiyaa hadda carabana soo gashay taa AU maxaa la jiray Imaaraadka Carabta oo aragteen Jordan Qatar Afrikaantii cadowga ahayd Ethiopia iyo Kenya waxa ka sii diray kuwa kale oo Carab ah oo dalkii wuxuu noqonayaa baraf dhalaalay oo kale Soomaali maqaalka waxyaabaha ereyga danqay waxa kamid ahay hadii saan aan wax laga bedelin ayuu leeyahay maqaalka Soomaaliya waxa laga yaabaa inay noqoto history taariikh dal la dhihi jiray Soomaaliya ayaa jiray saas wadadan hadda aasaarannahay nidaamkan dadkan hadda noo joogo oo madaxda sheegto waxa hoos ka wato iyo wixii dhan sanad ay ku sii socoto ayuu leeyahay maqaalka Soomaaliya taariikhay noqon doontaa oo wadan jiray laakiin haddeertaan wax kala noqday ay noqon doontaa waxa galeynaa qaybta wuxuu soo jeedinayaa maqaalka Soomaaliya midda haddeertaan waliba emergency degdeg haddeertaan ay u baahan tahay oo dadkan UN-ka iyo Mareykanka iyo midowga Yurub iyo African Union ay ka shireen
in Soomaaliya gacanta loo geliyo Somali Technocratic Council gole aqoon-yahano ah oo Soomaalida dad aqoon-yahano ah ka dhex buuxo dad aqoon-yahano ah oo madaxweyne aan ahayn oo wasaare aan ahayn oo gudoomiye baarlamaan aan ahayn oo 5 nin ilaa 10 nin laga yaabo inay gaarayaan tiradooda oo dhaqaale ilaahay uu siiyey oo shaqaystay oo adduunkaas si xalaal ah u shaqaystay oo NGO-yo iyo balaayi iyo farax ah kula jirin oo si xalaal ah dalkaas uga shaqeynayo waxayna u muuqataa 4 koox ay shirtay Soomaalidaas inayba goor hore si farmuuqeen ee si ogyihiin marka waxay leeyihiin golaha noocaas ayaa dalkan muddo 3 sano ah ee soo socoto waxaana fangareenayo 4 koox hadda la soo sheegay ayaa fangareenayo waxayna ku fangareen doonaan dhanka amniga iyo dhanka sidii dadka ummadda Soomaaliyeed kheyraadka ayaga laftirkooda ee ula soo bixi lahayn dhalinyaro Soomaaliyeed la tababaraya si shidaalka loo qodo si doomaha loo wado Turkiga hadda ciidamo noo tababaray laakiin sida doontii shidaalka loo baaro iyo wixii dhan guniga ilaali sida wad ogtiin Azerbaijan sida oo kale wada marka golahan wuxuu soo jeedinayo waa intaas Soomaaliya 3 sano oo degdeg ah oo samata bixina ay u baahan tahay 3 sano kadib doorasho xalaal oo federaal marka ummadda Soomaaliyeed ay isqabsato fiiri golahan sare waxay ka imaanayaan dhammaan qabiilada Soomaaliyeed ilaa hadartaan kii jagada heestaba kuwii kale ee qabiilada kale si loo leeshiimay yaqaan qabiilada kalena ninkan inay la hadlaan ma rabaan yani sheekada hadda taagan waa burbur caadi ah ayuu maqaalka taagay adiga